آه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومادada ama maadada teknolojiyada ee fasalka form 1ka waxaan rabaa inaan halkan kusoo koobo cutubka koowaad xiisadiisa ama lessonkiisa koowaad ama cashirkiisa koowaad kaas oo ka hadlaya computerka iyo waxyaabaha computerka la xiriira. Marka sababta xiisada loo duubayna wax kale ma aha, kaliya waxa weeyaan ardaygu inuu wixii uu xiisadii ku fahmi waayo inuu guriga markii uu tago uu fiidiyowgan dib u daawan karayo. Sidoo kale saad ogtahayna xiisadu waa iska 40 daqiiqo oo ma suuragalayso in xiisadayna qorno adigana aad qorto oo kadibna aan ku fahamsiiyo dee waqti badan looma helayo. Marka saas awgeed baan yara jeclaystay in tan sameeyo. insha Allah taala haddii mid noo wanaagsanaato noqoto waa sii wadi doonaa, haddii caqabad aan ka dareennana halkan aan ku ekeyn doonaa. Marka xiisada teknolojiyada ee form 1ka unitka koowaad xiisada koowaad ama cashirka ama chapterka koowaad wuxuu ka hadli doonaa computerka iyo waxyaabaha la xiriira. Ka hor intaan xiisada bilaabay xiisada markaan dhammayno hadhowaatay waxaan rabnaa kow inaan computer fahamsannahay, laba inaan sharxi karno qeybaha kala duwan ee laptop iyo tablet iyo desktop maxaa u dhexeeya, farqiga u dhexeeya. Sidoo kale describe waxaan qeexi doonaa xiriirka ka dhexeeya data iyo information. Sidoo kale waxaan qeexi doonaa ama aan sharxi doonaa sida loo isticmaalo ama aan u isticmaalo nolosheena dailyga ah, lifeka dailyga ah ee computerka qaabkan ugu isticmaalo. Marka su'aasha ugu horeysa isweydiina waxa weeye marka waa maxay computer? Computerka sidiisa waxa weeye waa electronic device weeyaan, waa aalad electronic taasoo operators u shaqeysa ama ku shaqeysaba under the control of instruction. Qaab dhismeed lagu control wuxuu ku dhisan yahay ama uu hoos yimaada ama uu ku shaqeeyaba waa control marka horeba stored in its own memory. Waa nidaam marka horeba lagu soo keediyay ama lagu soo programmeyay isla asigii maskaxdiisa. Marka computerku qaabka uu shaqeynaa marka waa electronic device weeye kaasoo operating ku shaqeynaya under the control instruction stored. Waa qaab nidaamku ku shaqeynaya isla asiga lagu keediyay basle. Marka sidoo kale marka computerku is an electronic device weeyaan, waa aalad electronic taasoo operators u shaqeysa under the control instruction. Qaab nidaam wuxuu ku shaqeynaya marka qaab nidaam oo controlayo oo marka horeba stored lagu soo keediyay in its own memory isla asiga lagu soo keediyay ama lagu soo programmeyay. Computerku can accept data input. Computerku waxa lagu qori karaa data oo uu aqbali karaa in data lagu qoro. Sidoo kale datadaas inuu information ka soo saarana wuu awoodaa. Wuxuu kala awoodaa datadaas inuu keediyo in loo isticmaalo future use, isticmaal mustaqbal dambe. oo tusaale ahaan markaad warqad wax ku qorto magacaaga oo dhameystiran ama sheeko aad ku qorto, sheekadaas wuxuu ka soo saari doonaa wax nuxur loo ka soo saari doonaa. Mathalan magacaaga baa sheegtay, halkaad ku dhalatay, halkaad wax ku soo baratay, waxaas oo dhan magacaaga waa daato, meeshaad ku soo dhalatay waa daato. Markii sheekadii oo dhan markaad dhameystirtay waxay isku bedelaysaa information. waa data information warbixinta waxa u kala dhaxeeya waa fahmi doonaa. Laakiin hadda waxaan ku fahantaa meeshan computerku data wuu aqbalaa, sidoo kale information wuu soo saaraa. Sidoo kale waxa loo yaqaanaa information kaasina wuu keedin karaa, wuxuuna u keedin karaa future use, mustaqbalka dambe loo isticmaalo. Marka one popular gate craze one popular category of the computers, computerada inta badan casriga ama computerada inta badan caanka ah ama nooca ugu caansan aan ilaahdee one popular categories of computer nooca ugu caansan computerka waa personal computer loo yaqaano. Marka personal computer kaasi waa mid shortcut to PC loo yaqaana. Computer kaasi dadka wuxuu qaban karaa dhammaan howlihiisa wuxuu ku qaban karaa in wax lagu qoro, process gareeyo, wixii soo saaro, keediyo, isaga nafsidiisa uu keediyo. Wuxuu u keedinayaa marka sidoo kale wuxuuna ku tacalluqaa bal in waxaas loo isticmaalo qofka markuu waxaas adeegsanayana ama uu keedinayo ama wax sameynaya personal computerkana waxa adeegsanaya qof at time. aan ku soo celiyo waxaan marka one popular categories of computer
computeradu way fara badan yihiin laakiin kan ugu caansan waxaa ka mid ah personal computerka ama waa laptopka ama waa tabletka ama waa xawla desktopka waa gadaalan ka arki doonaa. marka personal computerka marka qofka computerka ama PC-ga waxaa la yiraahdaa is shortened to PC, waxaa loo soo kaabiyaa waxaana PC loo soo gaabiyaa personal computer lama yiraahdo laakiin PC haddaad aragto waxaa la yiraahdaa waa personal computer ka taagan tahay. marka waa one popular category of the computerada ama nooca ugu caansan waxaa loo yaqaanaa waa personal computerkana waxaa laga soo gaabiyaa yani PC loo soo gaabiyaa. marka PC-gu marka waa computer that can perform kaasoo qaban kara all of its activity, dhammaan howlihiisa wuxuu ku qaban karaa yani howlaha oo qaban kara dhammaan waxaa kamid ah input in wax lagu qoro, waxaas kadib uu process gareeyo howlo uu ka qabto, kadibna wixii uu kasoo saaro output. marka output-ka soo saaro kadibna wixii waa keedin kariya baad self nafs asiga keedinaya. unintended wuxuuna ku tacaluqaa inta badan markii waxaas uu sameynayana iskama sameynaye waxay u egtahay to be used by waxa adeegsanaya one person at that time, yani waqtigaas uu wax sameynaya ama process gareynaya ama output ku sameynaya computerku kaligiis kuma sameynaye waxa adeegsanaya qof baa adeegsanaya. types of computer marka noocyada computerska ama personal computerka loo yaqaan waa saddexdaaniti: laptopka, desktopka iyo tabletka waxaa loo yaqaanaa personal computer oo qof baa isticmaalaya. haddaba laptopka iyo tabletka are sometimes marka qaar waxaa lagu magacaabaa mobile computerska. laptopka labadan weeyaane inta badan waxaa lagu magacaabaa mobile computerska. sababta loogu magacaabo maxay tahay? mobile computersku is a portable personal computer, waa wax la qaadan karo kaasoo isticmaaluhu uu qaadan karaa, sidoo kale wuxuu u kala qaadan karaa place to place, si fudud place to place u qaadan karaa. user marka isticmaalaha is anyone waa qof walba wuu kaasoo interactive yani ku tacaluqa ama ku dhex jira with a computer or the mobile device-ka. yani qofka user hadaa maqashan user waxaa la yiraahdaa waa qofka computerka adeegsanaya ama information ha ka shaqeeyo ama computerkaasi ha lahaado, qofkaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa user ereygaas hadaa maqasho waxaa marka waa qofka inta badan isticmaali doono. marka laptopki waa kana, desktopkina waa kana, tabletkina waa kana. inaan kala fahmi karna umaleyna. kan waxaa loo yaqaanaa tablet, kan waxaa loo yaqaanaa desktop, oo desktopka inta badan waxa waa systemkii iyo mouse-kii iyo keyboardkii way kala baxsan yihiin. computerkina waa kana. activity 1 marka maxaa weeyaan su-aasha inaad ka shaqeysaa laga rabaa oo buugaaga aad ku shaqeyso weliba insha allahu tacaala waan kaa sixi doonaa. which type nooca computer oo laptop ama tablet ama desktop waxaa noqda is best, yani nooce ugu wanaagsan adigu is leedahay ama tablet ama ha noqdo desktop ama ha noqdo waxa loo yaqaano tabletka. haddaba datada iyo information-kan kala fahana. marka data maxaa la yiraahdaa, information maxaa la yiraahdaa. data waxaa la yiraahdaa kow aan fiirino weligaa ma maqashay ereyga dato iyo information weligaa ma maqashay? haddii haa tahay bal waxaad ka xaajoodaa farqiga u dhexeeya labadoodaba balka noo sheeg. wuxuu yiri marka computerku wuxuu process gareynayaa data waxaa la yiraahdaa marka wax walba. tusaale hoosaan ku arki doonaaye wax walba oo kala baxsanaan data loo yaqaano. tusaale ahaan magacaaga waxaa la yiraahdaa Xuseen magacaaga kaliya waxaa loo yaqaanaa xog baa loo yaqaanaa data, macluumaad dhameystiran maaha. oo ana haddaan ku yiraahdaa dartaan Axmed haddaan ku dhaho ma garanaysid Axmedkaasi wuxuu yahay, ma qof baan wacaya ma wax baan kuu sheegaya ma magaciigan kuu sheegaya ma garanaysid. data marka waxaa la yiraahdaa waa input computer marka waxaad ku qoraysid inta badan marka hore data waaye. datadaasi waxay noqonaysaa marka into information waxaa la yiraahdaa marka wax dhameystiran. Axmed waa maamulaha iskuulka Al-Fatih ama Xuseen waa maamul ku-xigeenka iskuulka Al-Manar. yani waxyaabahaas waxa weeyaan waa information dhameystiran. qofka marka warbixintiisa dhameystiran lagu siina waxaa loo yaqaanaa outputs. meeshan arta waa t table baa dhacay noqon. sidoo kale markaan often badanaan store waxa lagu keydiyaa waxaaseti datada waxa weeyaan iyo resultigeeda informationka for future use loo keydiyaa waxyaabahaaseti. marka computerku wuxuu wax u process gareeyaa datadaas wuxuu bedelay informationkaasina wuxuu u keydin karaa maxay for future use u isticmaali karaa.
data haddaad maqasho marka waxa waa is a collected of yani unprocessed value waa waxyaabo aan markii hore process la gelin waay mathalan magacii axmed magaciisa weeyaan maamulo iskuula meel lagu qoray alfaatix meela lagu qoray laakiin haddii la isku keenay axmed waa maamulaha iskuulka alfaatix waa information dhammaystiran marka datadu waxa weeyaan waa collection of unnecessary value waa waxyaabo aan la process garin oo badan weeyaan which indicate waxay iskugu jiri kartaa marka text qoraal number tirooyin email sawiro audio qoraal audio out iyo video nooc kastoo datadaaba on the other hand markaan dhanka kale ka fiirina information waxaa la yidhahda is a data waa xog xogtaasoo is a process loo qaabeeyey unconfused meaning ama taasoo haddana ku siinaysa macno dhammaystiran siinaysa to the user markaad wax aqrinayso xog dhammaystiran haddaad aragto xogtaas waxaa loo yaqaana informations haddaba haddaan dhanka kale ka fiirino information warbixinadu ama information warbixintu is a data waa xog taasoo loo process gareeyey siinaysana macno dhammaystiran to the userska both haddaba labadaba marka business and individual users marka dadka ganacsatada iyo dadka shakhsiyaadkaba can make waxay sameyn karaan well informed decision go-aan si qurux badan go-aan u sameyn karaan maxaa yeelay they have intended access waxay inta badan xooga saarayaan to information from anywhere in the world yani warbixino kala duwan mar walba maxay keli karaan adduunyada meel walba ay joogaan waxaad fiirsaa marka tablekani hooseeya kaasoo ku kala cadeynaya farqiga data iyo xog u dhexeeyo data waxaa la yidhahdaa number of student in class fiiri number waa tirada ardayda ee galaaska lagu yiri bas tirada ardayda ee glass hadal dhammaystiran maaha fiiri marka ustaad axmed weli macno dhammaystiran malaha laakiin number of student in the class marka hadday xog tahay information wuxuu noqon karaa total student ardayda wadarta ardayda ee class ku jira waa 15 wiil waa wiilal 15 waa gabdho da-dooda waxay u dhaxaysaa 10 ilaa 12 ustaad axmed weli is a biology teacher waa macalinka biology-ga iyo wuxuu ku yiraahdaa wuxuu kaloo yahay hadana second principal of the college marka warkaan dhammaystiran waxaa information loo yaqaanaa warkaan data loo yaqaanaa the user marka isticmaalaha dartaan of technology and lifestyle yani the users dadka isticmaalayaasha ama isticmaalka teknolojiyada ee nolosha caadiga maalin walba aan isticmaalan ka hadlayna waa ka marka computers meeshan b baa ka maqan computerska marka ay used waxa inta badan loo isticmaalaa in almost all works in the life today yani nolosha dhan walba ay tahay maanta computerska waa la isticmaalaa oo hoosaan ku arki doona hadii noqon lahayd caafimaadkii waxbarashadii yani xaafadihii wax qof walba wuxuu isticmaalaya marka waxa loo yaqaan computer they are utilized waxay inta badan yani ka shaqeynayaan in all field dhammaan qaybaha including ay ka mid tahay medicine caafimaadka ama medicine daawooyinka health care meelaha xanaanada caafimaadka ama fayadhowrka education waxa loo yaqaano waxbarashada businesska manufactureska iyo service industry-ga waxyaabahaas dhan way ka shaqeynaysaa computerska marka also the most important tool waa aalada ama device-ka ama yani qalabka ugu wanaagsan kaasoo loo adeegsado in research and development waxyaabaha horumarinta iyo baxthiga ama yani cilmi baarista loo adeegsado waa computerska marka computersku are also the most important tool used in research and development okay waxaan ogaanaynaa marka departmentiga kala duwan loo adeegsado mathalan isticmaalka teknolojiyada in business section businesska markaan joogno waxaan adeegsanaa teknolojiyada marka technologiesku has contributed in today's business environment inta badan deegaanada ama meelaha ganacsiga waa laga isticmaalaa and it has increased waxayna sare u qaadaysaa waxa loo yaqaana competitive nature yani dabciga tartaneed ama tartanka suuqa ka jira sidoo of the world economy ee dhaqaalaha caalamka marka kambaniyadu waxay isticmaalaan computer technology ay isticmaalaan iyo sidoo kale internet ay isticmaalaan oo maxay u isticmaalaan to market inay ku suuq geeyaan their product badeecooyinkooda ama howlahooda
from local iyagoo gudaha haday noqon lahayd ama international haday noqon lahaydba. For example, tusaale ahaan markaad u eegto e-commerce websites ganacsiyada yani online-ka wax ku iibiya waxaa it's possible waxaa macquula to buy inay iibiyaan and sell ay soo iibsadaanna waxa loo yaqaano product badeeco and service iyo adeego from iyagoo jooga yani outside ama within yani country. Yani qolooyinka e-commerce-ga inta badan iyagoo computer adeegsanayo ama adeegsanayo internet waxay awoodaan inay wadanka banaankiisa wax ka iibsadaan gudahana wax ku iibiyaan. sidoo kale isticmaalka teknolojiyada ee meelaha loo yaqaano security council yani meelaha security-ka meesha marka biometric identification waxa weeye waa teknolojiyadu in loo isticmaalo meelaha loo yaqaano law enforcers marka waxay ku analyze gareynayaan meel loo yaqaano fingerprinter waxa weeyaan waa meel security meesha security-ka biometric loo yaqaano identification ama BI meesha marka waxa waa meel farta la saarayo qofka kale shaqaalaha farta markuu saaro yani ama albaabka u furmayo ama waa meel lagu diiwaan gelinayo qofkan shaqaalaha inuu shaqada yimid lagu ogaanayo. marka teknolojiyadu waxay inta badan xooga saaraysaa marka waxa loo yaqaan maxay waxa loo yaqaan analyze fingerprinting taasoo based on lagu base gareeyo database kaasitina house people fingerska waxay u yihiin computer record gareynayo. yani qofkan shaqaalaha wuu imaanaya markuu yimaado kadib meeshaas uu suulka saaraya markii uu suulka saaro waxa meeshan yani base gareynaya ama waxaan ay database kan kala hagayna waxa weeyaan waa computer record. This automatic method kan waa marka qaab yani si automatic u sameysmayo oo verify lagu aqoonsanayo the identity shakhsiyada of the person qofka iyadoo lagu base gareynayo wax loo yaqaan physiological ama behavior characteristics kaasoo loo yaqaano biometric marka waxa weeyaan waa wax loo yaqaan physiological ama behavior characteristics waaye. qofka marka waxaan ku yiri meeshan wuu imaanayaa farta uu saaraya farta markuu saaro kadib computerka wuxuu inta badan yani record gareynaya marka in qofkaasi uu yimid ama qofkaasi uu joogo. meelaha security-ka waxaan ognahay meeshaas in lagu xiro wax loo yaqaan CCTV marka waxa loo soo gaabiyaa wax loo yaqaan maxay security gate also called secret TV-ga ama CCTV-ga marka in order to protect people's and other resources from the thieves and bad people waxa lagu xirayaa marka dadka tuugada iyo dadka xun in meeshaas laga ilaaliyo. when the camera marka fiiri cameras marka kaamirooyinkaasi waxay ku xiran yihiin wax loo yaqaan wifi ama wax loo yaqaan maxay internet ku xiran yihiin internetkaas maadaama uu ku xiran marka meeshaas waxay ka ilaalinaysaa ama ka difaacaysaa yani waxyaabaha yaala ama hantida taalo tuugada iyo dadka xun ay ka ilaalinaysaa. waa CCTV-da ayadoo kor laga daabanayo ama mobile laga daabanayo waa taa. sidoo kale kan ugu dambeeya yani kan ku xiga waxa weeyaan waa teknolojiyada loo isticmaalayo goobaha waxbarashada. sanuuna teknolojiyada nafteeda ma goobaha waxbarashada si sabarka aad ka arkayso waa loo adeegsadaa oo the education waa yani education sectors goobaha waxbarashada has been greatly enhanced waxay kor u qaadeen yani kor bay u sii kacayaan ama way sii badanayaan waa due to waxana taas ugu wacana leeyahay availability of the modern technologies in the field. taasna waxa ugu magacaabna helida ama sida fudud ee lagu heli karo teknolojiyada fieldigooda. for instance tusaale ahaan schools colleges university jaamacadaha currently si joogta waxay u isticmaalaan various softwares yani software kala duwan softwaradaas to manage gareynayaan their day maalintooda day yani howlahooda operation day to day operationskooda howlahooda maalmaha ayay ku manage gareynayaan. ardaydu xitaa waxay awood u leeyihiin inay kasoo registerayaan program ama course oo kaasoo yani uu bixinayo iskuulka ama jaamacadda iyagoo adeegsanaya online portal. sidoo kale teknolojiyadu waxa inta badan laga adeegsadaa meesha loo yaqaan health sector-ka oo hadda meeshan waa meeshii yani qalabka ilkaha iyo waxaasita lagu sameeyo ama qaliinka lagu sameeyo. marka teknolojiyadu sidoo kale is used in waxa lagu isticmaalo health sector-ka meelkaas oo ay kamid tahay isbitaalada ama clinical care-ka meelaha yani dhaawacyada lagu dhayo in order to keep si loogu hayo the patient record yani recordada ama patientka meeshan soo yimid recordkiisa yani
goormo yimiday caafimaadkii laga daaweeyay bishii ahayd intaas daawo qaatay waxaas inta nagu hayo. Ama on other hand hadda sida kale u fiirina there are several high technology machines waxaa jira mashiino tiknoolajiyad oo yacni aada u sareeya kuwaasoo naga caawiya maxay inaan yacni meelaha diagnosiska ama treatmentiga ama laysku daaweeyo of various diseaseska yacni waa meelaha wax loo yaqaano maxay cudurada kala duwan naga caawinaya sida tusaale ahaan oo kale maxay machiniska hoos kaaga muuqdo kan waxaa meelaha qaliinka kan waxaa meelaha oo ilkaha lagu daaweeyo sorry yani cashirka waa yara boobsiinaya marka yani haddii aad fahmi weyso yani video ku soo cesho insha Allah taala fahmi doonta rajeynaya insha Allah bari hadda isku nimaana yani glasskan kula fuguri doonaaba. sidoo kale teknolojiyada waxaa lagu isticmaalaa meelaha agriculture-ka waxaa weeyaan waa meelaha beeraha iyo meelaha wax soo saarka leh. teknolojiyada sidoo kale agriculture-ka ka shaqeysa waxaana loo yaqaanaa teknolojiyada agriculture-ka ka shaqeyso electric agriculture loo yaqaanaa. useful waxaa loo isticmaalaa production of the machines yani mashiinada wax lagu soo saarayo kuwaasoo loo adeegsanayo farm beerta to help si u caawiso with farming beerashada. agriculture machineska marka have been designed for waxaa loo qaabeeyay particularly qaasatan every stage of the agriculture process yani agriculture machineska marka waxaa loo qaabeeyay yani mid walban yani shaqada uu qabanaya ayaa loo qaabeeyay oo mid walba shaqada uu qabanayo uu egyahay. tusaale ahaan the include machines waxaa ku jiro tilling the soil tacarada lagu gedinayo planting the seeds kan lagu abuurayo waxa loo yaqaano unugyada ama seedska lagu abuurayo. kan kale waxaa loo yaqaana irrigation waa meesha yani irrigation waxaa la yiraahdaa waraabinta of the land dhulka. protection yani waa mid ka difaacaya yani cayayaanka iyo waxyaabaha beerta ka difaacaya mid walba nooc gaar u leeyahay. marka computerka markaasna wuxuu leeyahay sidoo kale waxa loo yaqaana characteristics kan marka astaamahaneeti waxaa kow ka ah speed. computerka inta badan waxay ku shaqeynayaan high speed oo waad u jeedaa fadadaan yani falaartan inta aan kor u dhaqaajiyo ama hoos u dhaqaajiyo orad ku soconaysa speedka waxaas loo yaqaana. sidoo kale waxay ku shaqeysaa accuracy saxnaansho. computerka inta badan waa saxan yahay oo wax walba ku qorto adiga un baa qaldaya bil aadan ahaan maahane isaga inta badan waxaad adigu sameynaya. Mesela Abuukar aan qoraya hadaan waan qoraya Axmed wuu qoraya wax walba wuu qoraya inaan anigu wixii qaldama ahayn. okay eriganeti asna waxa la yiraahdaa diligence la yiraahdaa waa dadaalka yani inuu naga shaqo badan yahay aniga bil aadan hadaan waan daaleyna laakiin computerku asigu inuu dab ka dhamaado maahane ma ka daalayo maanta uu shaqeynaya. versatility waxa la yiraahdaa inuu computerku qaban karo hawlo kala duwan. مثلا anagu bilaad hadaan nahay waxa laga yaabaa hadii u wado 3 hawl ama 2 hawl isku qaban karna laakiin isaga intaas oo hawl isku qaban karaya. kan ugu dambeeyna waa storage capacity-ga waa qaabka wax uu ku keedin karo. questionska marka ko waxa ka ah device yani define ina qeexno. questionska marka insha Allah taala waan sixi doonaa hadii xiisada koowaad aan ku soo galo xiisada labaad qof walba waan ka rabaa haduu Ilaahay ka raali noqdo. define waxa qeexaysa the term of the computer muxuu yahay qeex. why are the computer waa sababta ay computeradu ay u yihiin the most important tool used by human yani hadan bil aadan nahay ereyga ama toolka ugu wanaagsan aan isticmaalo computer sababta uu yahay noo sheeg. sidoo kale differentiate waxaad kala qeexdaa ama kala sheegtaa data iyo information kala qeex. sidoo kale waxaa sheegtaa real example ka bixi provide real example meesha ula jeedaa. marka insha Allah taala cashirkiina waa yara boobsiye yani waqtiga yar awgeed waayo hadda waxaan duubayaa waa 5 saac marka waxaan isleeyahay bal ka gaarsi subaxina daayidii imaado insha Allah taala wasila fuqri doono. marka waxaan idin ka rabaa kaliya cashirka waxaan ugu tala galay wax kale maaha xiisada hadwaad marka imaado inaan wixii qoro wix sameeyo ma gaari karin. marka wixii aan ka gaarno waan qabanaynaa wixii aan ka gaaro weyno waxaan rabaa in video aan uu ka kaalmeeyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad ma santiin.